السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaa ku soo dhawaada barnaamijkeeni labaad. maanta waa sabti, taariikhduna waxay ku beegan tahay 27 bisha Juun sanadka 2026. wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa. haddaba wararka aanu barnaamijkeedii kugu soo gudbinayno inta badan waxay noqon doonaan oo ay daba socdaan dagaalkii cuslaa ee xalay mar kale dhex maray Mareykanka iyo Iiraan. haddaba dowladaha khaliijka ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka Iiraan ay ku qaaday Bahrain. waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu faahfaahin doonaa Iiraan oo ku hanjabtay haddii tallaab kale uu soo qaado Mareykanka in gobolka oo dhan laga dareemi doono. haddaba Mareykanka ayaa iyaguna sheegay inaanay marnaba aqbali doonin waxa ay ku tilmaameen daandaansiga Iiraan. haddaba xaaladda bariga dhexe oo saakay mar kale qasan ilaa maantay ayaynu barnaamijka wararkii ugu dambeeyay gebi ahaantii ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirnana wixii warara ee soo kordha waan idinla socodsi. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa sabti, taariikhduna waxay ku beegan tahay 27 bisha Juun sanadka 2026. akhyaaray barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. waxaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa gebi ahaantiis xaaladda iyo wixii dhacay, dagaalkii xalay dhacay iyo weliba saamaynta uu yeeshay. haddaba ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa sida telefishinka Al-Jazeera uu qorayo. dowladda Bahrain ayaa si kulul u cambaaraysay markii diyaarada daroonisa Iiraan ay ku weerartay dalkeeda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Bahrain ayaa waxay sheegtay bayaan rasmi ah oo ay soo saartay oo lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalkaasi in ay si kulul u cambaaraynayso dowladda Bahrain bartilmaameedka lasoo bartilmaameedsaday boqortooyada Bahrain aroortii saakay kadib markii dhowr diyaaradaha darooniska ee Iiraan ay weerar ku soo qaadeen halkaas. marka waxay leedahay diyaarado aan xisaab lahayn ayaa xalayna soo aaday ee aroortii saakay Iiraanaana nagu soo weerartay. marka meelaha la weeraray waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha, waxaa ka mid ah saldhigga ciidanka badda Mareykanka ay halkaa ku leeyihiin, iyo weliba waxaa la sheegayaa goobo kale. marka Bahrain waxay leedahay waxaan wax la aqbali kara maaha, waa cambaaraynaynaa, hawshaas saasay ku socotaa. haddaba dhanka kale waxaa soo baxaya iyagana warar oo dowladaha khaliijka ay ku cambaaraynayaan wixii dhacay iyo Iiraan weerarka ay ku qaaday Bahrain. haddaba wararka waxay sheegayaan in wadamada carabta ay si kulul u cambaareeyeen weerarka Iiraan oo lagu qaaday dowladda Bahrain. haddaba warbixinada ku saabsan cambaarayta waxay leeyihiin dhowr dowladood oo caraba ayaa sabtida maanta waxay soo saareen bayaan ay kaga soo horjeedaan weerarka diyaaradaha duuliye-la'aanta ah ee Iiraan ay ku qaadeen dowladda Bahrain. waxayna ku tilmaameen tani inay ku tahay meelka dhac qarannimada dalka Bahrain. waxayna sheegeen in sidoo kale qaanuunka caalamiga ah iyo heshiiska qaramada midoobay uu meelka dhac ku yahay. dowladaha Imaaraadka, Sacuudi Arabiya iyo Qatar iyo qaar kale oo la sheegay dowlado kale inay iyagu markaa cambaareeyeen weerarkaas lagu qaaday sida la leeyahay waddanka Bahrain oo ay qaaday Iiraan. marka carabtii oo dhan waa qaylinaysaa, laakiin nimankan waxay taagan yihiin annaga Maraykan maba arki karnaba, hadduu asagu bilaabo inuuna soo weeraro annagana gobolka oo dhan meesha uu joogo ayaanu weeraraynaa. haddaba Iiraan ayaa iyaduna galabta waxay soo saartay war cusub oo ku saabsan waxa dhici kara haddii Maraykanka mar kale uu isku dayo inuu Iiraan soo weeraro. haddaba warkan waxaa la sheegay inuu ka soo baxay dowladda Tahraan, waxayna wacad ku martay inay jawaab ka adag waxa hadda ay samayn doonto haddii ay soo laabtaan weerarada Maraykanka. telefishinka waddanka Iiraan
ayaa soo xigtay ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan mawaaqicda ama saldhigyada ciidamada maraykanka ee gobolka oo dhan uu ku leeyahay haddii mar kale maraykanka uu isku dayo inuu soo weeraro iiraan waxayna sheegeen jawaabta markan xigta inay ka ballaaran doonto jawaabtii xalay ay bixisay iiraan way marka waxaan leeyahay marka haddii mar kale maraykanow aadna soo aado oo aadna soo weerarto jawaabteenu intaa way ka badan doontaa intaas jawaabtu way ka badan doontaa leeyahay waayahay iiraan iyaduna waray soo saartay maanta dhan iyadaa la cambaareynayay iiraan qaladay samaysay xadgudubay waxay ku samaysay shuruucda caalamiga waddan la yidhaahdo baxrayn oo waddan yaray weerartay ala lahaa ayada marka weerarkeeda lagu qaaday iiraan oo maraykanka ku soo duulay cid ka hadlaysa male carabta waxay ka hadlayaan keliya baxrayn weerarka lagu qaaday iiraan marka maxay samaysay iiraan marka waxay samaysay ayadaa cambaaraynaysa marka kii ayada lagu soo qaaday waxay leedahay maraykanku asaguna heshiisyadii caalamiga ahaa ayuu ku xadgudbay leedahay macnaha afkeeda ayadaa markan isku difaacaysa haddaba marka waxaa leeyahay iiraan waxa ay weerar ku qaaday ee weerarka maraykanka uu ku soo qaaday koonfurta waddankaas waxay ku sheegtay dowladda iiraan inay tahay xadgudub lagu xadgudbay heshiiskii isfahamka ahaa ee dhex maray maraykanka iyo iiraan haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxay sheegaysaa weerarada la qaaday ee markaa maraykanka uu ku soo qaaday dhanka xeebaha koonfureed ee iiraan inay markaasi ka dhigan tahay in xadgudub ay ku tahay heshiiskii ka dhexeeyey ee is-afgaradka ahaa maraykanka iyo iiraan maraykanku waxay weerareen magaalada la yidhaahdo serbek ee dhanka xeebta koonfureed ku dhacda dalkaasi iiraan marka hawshaasu marka halkaasee maraysa xalay marka weerarkii dhacay waataan ka sheekaynay barnaamijkaygii hore kaga sheekaynay wuxuu socday ay dhaheen maraykanka 90 daqiiqadood uu socday 90 daqiiqadood waxaa ka qayb qaatay diyaarado kala duwan oo afara oo isugu jiray F-35 iyo F-16 oo maraykanku leeyahay laakiin saakay warkii iiraan ay soo saartay waxay sheegeen diyaaradahaas inay iska caabiyeen oo aanay wax khasaare u geysanin goobihii weerarka ay ku soo qaadeen marka xaaladda guud ayaa la isweydiinayaa saakay sidee waaye meeshii lagu dagaalamay Hormuz siday tahay wararka waxay leeyihiin iiraan weli iyadaa koontaroosho meeshii gacanta ku haysa markab kasta oo meesha maraya annaga meesha u tilmaano inuu maro waayo inuu na soo waco uu yidhaahdo markabka noocaasaan ahay waxaan rabaa inaan gudbo waxaan leeyahay 10 markabaa kaa horraysa ee joog safka soo gal xagga istaag markaan ku wacnaa soo gudbaysaa maraakiibta qaaraa marka maraykan iyo waxa kan iyo ku xiran ayay maraykankee wacayaan waxay leeyihiin waa furantaa meesha maxaan markaasuu maraykanka wuxuu leeyahay soo mar marka ma layska yeelaa waa lays afuufaa meeshaan dhibanaa fadhiya waxay leedahay weliba iiraan qalad maayna saamaynba heshiiska maraykanka aan la galnay qodobkiisa 5 iyo midka 1 iyo waxa dhan waxay noo cadaynayaan annaga inaan meeshaan maamulno 60 maalmood ee hawshu socoto inaynaan wax canshuura qaadin 60 maalmood kadib annaga canshuurtaasaa qaadanayna laakiin 60 maalmood amniga meesha inaan mas-uul ka nahay inuusan markab miina ku istaagin oo isan ku qarxin waxaasoo dhan ayaan ka shaqaynaynaa ay leeyihin marka xaalku marka saakay waa halkaas lama soo sheegin wax markaba oo dhibaato kale loo geystay iyo weliba maraakiib kale oo gudubtay saakay lama sheegin oo wax wara oo dhanka maraakiibta ku saabsan oo soo baxay ma jiraan dhanka kale koonfurta Lubnaan xiisada ka jirtay waa tii xalay Lubnaan ay heshiis la gashay Israa'iil haddaba waxaa hadlay hogaamiyaha Xisbullah wuxuu yiri heshiiska aan gasheen wax ka jira male
heshiiskaas waxaa idin fiican inaan waa ka noqonnay tirahdaan. midda kale lacag kasta haddaa soo qaadataan waataan saakii barnaamijka ku soo qaadanay 30 milyan oo dollar oo horudhaca in la siinayo ciidanka Lubnaan si ay hub iyo wax ugu keensadaan oo ay ula dagaalamaan Xisbullah. wuxuu raayay soo lugoynina dagaal sokeeyana wadankan ha u horseedina. cadawga meesha noo taagan dhulkeeniiba haysta. koonfurta Lubnaan qayb ka mid ah Israa'iil ku jirta. marka maxay tahay marka qandaraaska soo qaadanaysa Xisbullah la dagaalameyna leedii. annaga qoriga waxaan u haysanaa nimankan wadanka ka saara ha ka baxeen wadanka. markay ka baxaan ciidanka dawladda ha yimaado xuduudda hadago aragtaan inaan wax ridno. laakiin saan ma anfacayso. Israa'iil Mareykanna maxay leeyihiin Lubnaan hal dawlada laga rabaa. hadda waxaa ka shaqeeyay laba dawladood mid Xisbullah oo Iiraan iska leedahay iyo dawladdan annaga la macaamilayno. marka taa macquul ma waa tahay. marka xaalku halkaas uu maraa war marka hadda soo dhacay isaguna intaan barnaamijka ku jirnay wuxuu sheegayaa mas'uul Mareykan ayaa wuxuu sheegay ciidamada Mareykanku inay soo rideen laba ka mid ah diyaaradaha droniska ah oo ay sheegeen in lagu bartilmaameedsanayay maraakiibta ganacsiga qaarkeed ee ku sugan marinbiyoodka Hormuz. macnaha ilaa hadda diyaaradii droniska ee Iiraan hawada ku jiraan. markabkii isku daya inuu khilaafo ayay madaxa uga soo dhacaysaa. marka Mareykanku waxay leeyihiin waxaan saaki haddeer soo ridnay laba daroon oo weerar ku ahaa maraakiibta. marka jawiga marka wuu qasan yahay. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah xalay dagaal dhacay saaki marinbiyoodkii wax maray male shidaalkii waa kacay. haddii 10 markabo isku xigta ay marto shidaalka waa raqiisaya. hadda waxaa leeyahay shidaalkii kor u kacay haddana meeshii uu shidaalka soo marayay ayaa problem ka jira. meeshaas marka ay xalismato shidaalku hawshiisa waa soconaysaa leeyahay. marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkaygii labaad maantana waa intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa. wixii kale oo akhbaarada ee soo dhaca intaynu ku jirno maantay barnaamijyada dambe ayaanu idinkula socodsiin doonaa. like gareey oo share gareey barnaamijka inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo.